السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق وانيمة جناك ايلي سعوتين والوقد فرسيسكو كوبرو اف صومالي مانتو حق هلينا ويل اصوير هويدي سلقا قاطي ويل كوا عرب مقعيسا وجدي مشاس اللي يسالها فرسيسان وقري مركوحو داني فسر ان شاء الله. Bonsoir. En France, 2 enfants meurent chaque semaine sous les coups de leurs parents. wuxuu dhahay faransiiska maalin walba laba cunug ayaa ku dhimato. À la fin de cette soirée, 3 enfants auront été violés. wuxuu dhahay saddex caruurne yacni waa la kufsaday ama Aujourd'hui, 200 enfants ont franchi la porte d'un commissariat pour des faits de violence. wuxuu dhahay waxaa jira caruur oo tagaan booliis korstiisa inay tagaan dagaal iyo sameynayo dilitaan. Certains d'entre eux seront soustraits à l'autorité de leurs parents. qaarkoodan wuxuu yidhi hooyooyinkooda loo diidayay iyo aabayaashooda inay arkaan way isdilaan. Ce seront des enfants placés. waa caruurtan ka hadlaya wax kale moo dhaa caruurta qaadato waayo oo dadka dowladda serviceka. Vous vous souvenez probablement de Cosette, qui a été placée par Fantine chez les Thénardier puis sauvée par Jean Valjean. C'est la plus célèbre d'entre eux. Vous pensez certainement que les enfants dans notre pays sont protégés. Je suis ici pour vous dire que c'est faux. wuxuu yidhi faransiiska ama yurubta waxay dhahaan uu dhahay ilmaha oo la qaato waa ilmo annaga aan securitigooda aan xafideeno oo ilaalineyno oo iyagu wax u fiican ay yihiin laakiin waa been buu dhaa waxaas. Je m'appelle Lies, j'ai 25 ans et je suis un... wuxuu yidhi magaceyga waxaa la dhahaa Elias waxaana jiraa 25 sano waxaana ahaay uu dhaha ilmaha la qaatay hooda aabood la qaatay. un ancien enfant placé. Je suis né sans toit. Je waxaan ku dhashto dhahay santua baan ku dhashto dhahay. dépends de l'État. Cet État qui promet la liberté, l'égalité, wuxuu dhahay dowladda dhehaysa maanta liberté iyo égalité kulligeen isku wada meel baan nahay xorriyanimaa jirto dhahaysuu dhahay. la fraternité à certains mais pas à d'autres. wuxuu dhahay waxaasoo dhan wuxuu dhahay qaarkooda lee lahoo dhahay mafahamtay dadka iskale le iska leh le kulligeen ma wada lihiyo dhahay waxaas ma wada lehnin. J'ai été placé à la naissance parce que ma mère wuxuu dhahay anoo yaraa la iqaato dhahay markaan dhashtaba la iqaato inaa rajico xuquuqtina billah. biologique atteinte d'une maladie mentale maladie mentale bay lahayd oo dhahay hooyadii maladie mentale waxaa lahaa problemka maskaxda. n'a jamais pu s'occuper de moi. yacni wuxuu dhahay calashaan intuu cunuga ma xafidi karayso cunuga ma ilaalsan karayso cunuga ma haysan karayso. J'ai atterri dans une pouponnière jusqu'à l'âge de 18 mois avant de rejoindre 18 bilood aan cid la joogo dhahay maxaa la joogo dhahay meelaha caruurta la dhigo intaan ka helayo family qaato. ma première famille d'accueil. C'était une famille d'accueil aimante qui m'a apporté tout ce dont un enfant a besoin. Malheureusement, je n'y suis resté que jusqu'à l'âge de 5 ans. wuxuu dhahay family fiicana la joogo dhahay laakiin wuxuu dhahay waa ka xumahay waxaa la joogo ilaa 5 sana ka gaara ilaa 5 jira la joogo dhahay. Des raisons personnelles, elle a dû déménager dans le sud de la France. wuxuu dhahay way guurtay faransiiska suudkiisii degtay yacni kolley wuxuu dhahay wax oo shakhsiyadeeda ahaa iyo person lifekeeda ahaa u dhahay. Et les services d'aide sociale à l'enfance ont refusé que je l'accompagne. wuxuu dhahay kuwa caruurta dadka qaataan oo mas-uulka oo dhahay way diideen dhahay familkaas aan u bartay aan la joogo inay iyo aan raaco way diideen dhahay. Au prétexte que ma mère biologique, bien qu'absente et incapable, a toujours conservé l'autorité parentale. wuxuu dhahay hooyadaa iima ku booqan karayso because wuxuu dhahay hooyadaa hooyo adiga ku hayn karayso maaha. J'ai donc atterri dans une deuxième famille d'accueil. familka la Cette joogo fois-ci, c'était une famille d'accueil maltraitante. wuxuu dhahay famil waxay ahaayeen oo dhahay si xun igula dhaqmaan. c'était famille de maltraitant waxaa la yihahdaa dadka si xun ula dhaqmo ilmaha si xun u galay inaa lilah wa inaa raajicuun walaa xoola quwata inaa billah. dadkaas meel walbay joogaan ilaahay anaga qabto shartooda malaa'igaha iyo ilaahay baan waardiyeynayo wiil yaroo muslimna waa maasha allah. J'ai vécu sur un morceau de polystyrène, à même le sol, dans une pièce sans meubles.
Pendant wuxuu dhahay guriga igeeyeen dhaa qolku igeeyey dadba kuma jirin yani waxba ma yaalo dhah alaab dhan ma taalo waxba ma taalo 2 ans, j'ai été enfermé dans ma chambre. 2 sano qolkan ku xirnaayo dhah Alors il arrivait parfois que je fasse mes besoins sur moi. Et quand way elle dhacdayo dhah marmarka qaarkood waxyaalaan u baahana inaan soo qaato ama aan samaysto ouvrait la porte, c'était pour exprimer son pire sadisme. J'avais wuxuu dhahay markaan soo baxana waa inaan si fiican maxaa la yiraahdaa maxaa la yiraahdaa si fiican oo u sheego waxaan rabay iyo balaayo tacsiya hadal dee droit aux douches glacées ou aux douches brûlantes. Il a fallu 2 ans à mon éducatrice pour s'en rendre compte. Il a fallu 2 ans au service d'aide sociale à l'enfance pour me protéger. 2 ans, c'est long. 2 ans, wuxuu dhahay 2 sano aan sugayo dhahay meeshaas in laga wado ay caawiyaan qolada soosyaalka u dhahay 2 sano way adagtoo dhahay way dhib badantaa 2 sano oo saas oo ku rafaadka ku jirtay ça laisse aussi des traces. wuxuu dhahay waxay noqon kartaa dhahay inaan isdilo nafsadda isdhaafsiiyo nolosha aan ku noolahay Quand j'en suis parti, j'ai été de famille d'accueil en famille d'accueil avant d'atterrir dans un markaan baxay u dhahay marba waxaa lii geenaya qolo famil ba famil dadba dadaa lii dhiibaa foyer pour la première fois à l'âge de 10 ans. J'ai ilaa aan 10 sano aan ka gaaray saasa la isku dhiibaayo dhahay tout de suite été très frappé par la configuration des lieux. C'est un foyer qui accueille 40 enfants âgés de 3 à 18 ans sur 2 étages. Un étage pour les filles, un étage pour les garçons. Mais j'ai surtout été sidéré par la violence entre enfants et par la violence des adultes envers les enfants. wuxuu dhahay fuwaayaan helo dhahay oo wiilashii gabdhaha ah korna degan yihiin iyo kor iyo hoos wiilashii gabdhaha kala degan yihiin laakiin wuxuu dhahay fuwaaye wuxuu ahaa dhahay dilaa lis dhammeynaa En général, quand on arrive dans ces lieux-là, la première nuit, on est bizuté. Moi, on m'a pissé dessus. videoga intaan ugu ekeenaa calshaan hadii u dheeryahay dadka dhahay farsiiska ilmaha lama qaato farsiiska ilmaha waa la qaataa subxaan allah ilaahay naguma keeno inta ummada laga qaatan ilaahay awlaadooda ha u soo celiyo haddii aragtay videoganeeti inaa youtube-ka agsii daawatay magacaas uu kusoo galaa bomo france uu kusoo galaa magaciisa haddii aragtay wiilkaasna waa raadi karaysaa ilyas aldhaa waa wiil muslima maasha allah quruxdaas ka muuqato iyo muslimnimadaasito ilaahay u siyaadiyo waxaan i tusayaa oo kaleente naagtan waxay ka doodaa in caruurta la qaato ayadana youtube ay leedahay baarlamaanka ku jirtaa naagtan ayadana Vous ne faites qu'un seul geste en direction du peuple. Vous le bâillonnez. waxay tiri wax kale aan sameynayna male tiri magaceeda waa kaas hoosta meesha soo qoraya wax aan awoodna aan sameyna male afka inaa xirano le waay dha afka sasoo xirano waay waxaa soo haray naagtaas iyadana caruurta laga qaatay boorkeeda meeshuu ku dhegay iyadana mudaharaad ay sameynaysaa maamul kuqaajuusa ugu qoran halkaas maxaa ku dhahay je raconte le placement abusif de mes enfants abusif qui a été beaucoup dénoncé aussi pour faire des placements abusifs, bizarre, qui a été beaucoup dénoncé aussi pour faire des placements abusifs. Voilà, donc il y a eu un blog qui a parlé de cette association, qui a dénoncé vraiment qu'elle agit aussi en toute illégalité, qu'elle rend des faux rapports, voilà, depuis très longtemps et qu'elle fait des placements abusifs. Donc il faut s'intéresser de près aussi à cette association-là. Où est-ce qu'elle se situe? Alors, Olga Spitzer, nous, c'est... Cette bizarre waa association aad loo yaqaano halaga cararo aad qofkii maqlo gabadhaasiito iyadana saas u cawaadaysaa gabadheeda laga qaatay subxaan allah marka waxaa kaloo inay tusayaa dadkan ay mudaharaadayaan ilmihii laga qaatay La vôtre, comme la mienne, qui ont vu du jour au lendemain leur vie basculer parce que leur enfant a été placé abusivement en ASO. naagtaas ilmiyaa laga qaatay iyadana way mudaharaadaysaa marka waa kaas manifestation nationale weeye contre le placement abusif des enfants intaas caruura laga qaatay inaa lilah inaa raajicuun laa xawla quwwata illa billah ilmahaasaa laga qaatay Il n'y a pas que moi. naagtaas idan ilmaha laga qaatay iyadana Et donc, quoi. C'est pas tanna ilmaha laga qaatay iyadana voilà. On se retrouve kana avec ilmaha laga qaatay une kan suspicion walaa générale calooshii autour de nous. guuriyay aad iyo aad Donc, markii la dhihi farsiiska ilmaha ma qaato dadkii cadaanka iyo midoogaas iyo carabta ku badan wadankan laga qaataa soomaali hadday kusoo badatay iyagana haddaa laga qaadan weyaa laakiin waa inaa iska celino iska weerno
odagaas asna ilmihii baa laga qaatay subxaan allah mar horaa laga qaatay maalin walbo wuu soo geliyaa youtube-ka hadda journaalka laga soo diyay aan dhexdaas waxaa laga soo diyay telefisyoonka laga soo diyay asna oo ilmaha waxaa lagu haystaa hadda ka hor naagtiisa isku dagaaleen naagtiisa ilmaha iskula haystaa marka saas darteed way asigana ninkan asigana waa nin abukaate ah oo u hadlo maxaa la dhahaa caruurta la qaato iyo wuxuu kasoo horjeedaa dadka maxaa la dhahaa qaata caruurta sida ugu qorantahay waa kaas son projet de la loi et sur les placements des enfants waa contre ku yahay kasoo horjeeda asne marka information badan baa jira insha allah qofkii rabo inay laga caawiyo haddii ilmihiin laga qaatay oo u baahantihiin association iyo balaayo ku caawiyaan haddii aa xanuunsanaysa shirkada waxaa jira adigoo qolada caruurta u tegin oo ku caawinayaan oo habeen imaan iskaa bedelaya ilmahada ku haynayaan intaas maanta noogu ogyahay insha allah waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu